siyaasiga Cabdilaahi Galjir oo kamid ah siyaasiyiinta kala duwan ee reer Somaliland isla markaasina xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadihii kala dambeeyay Somaliland ayaa maanta waxa uu si rasmi ah shaaca uga qaaday inuu ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani. Siyaasiga Cabdilaahi Galjir ayaa ka waramay asbaabaha uu xushay inuu ku biiro xisbigani, sidoo kale waxa uu dhaliilo u soo jeediyay xukuumadda Somaliland uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku dhaliilay in waqti xaadirkani ay lumisay midnimadii bulshada kala duwan ee reer Somaliland. siyaasi Cabdilaahi Galjir oo ka hadlaya arrimahaasi waxa uu yiri waxaan yar meesha ka saaraya erayga la yiraahdo siyaasi madax banaan intaan halkaas soo lugeeyay baa ugu dambeysay wixii marka laga bilaabo wadani waxaan leeyahay xisbigan waxaan ugu soo biiray waa magaca la yiraahdo marka laga tago wadani la yiraahdo rajada shacab waxaan leeyahay walaalayaal idin keeni maayo idin kale idin kumaan ogeyn anna la iman maayo calool xumo iyo cadho iyo ciilaan cid u qabo la iman maayo reer wadanina kuma ogeyn markaa reer wadanina waxaan ku ogahay inaanay u oqoonin dulqaadka doqoniimo aanay u oqoon koogin waxaan ogahay inay calool xadhan yihiin waxaan ogahay inaanay mar kasta u taagnayn hadday caloolxumo wax tarayso oo ciid la qaba wax tarayo madaxweynaha maanta jooga u tari lahaa labadii sannadood waxaynu ku jirnay waan garnaqsanaya garnaydu male waan dagaalamaya waan iska celinaya waxaasaynu walaalayaal ku jirno maanta idin kale idinka filmaayo anna idinma wado waxaan idiin wadaa inaan idinla galo halganka odhanaya waddanka waxaynu ku soo celinaynaa xorriyaddiisii hadalka waxaynu ku soo celinaynaa xorriyaddiisii ganacsiga waxaynu kala dagaalamaynaa cudurrada waxaynu kala dagaalamaynaa aqoon la'aanta waxaynu u raadinaynaa ictiraafka wax allaala wixii wala midnimada ummadda oo waa ka shaqaynayseen hore iminkana anna aan idinka noqdo xubin idinkala shaqaysaan idinla imanaya waxaan ku soo gabagabeynayaa ummadda Somaliland kulligeed xusbi kasta aan ahaanay waddan baa naga dhexeeya dan baa naga dhexaysa dhowr wax aan ku kala aan iska dayno inaynu hadallo isku gubno oo aan caloolxumo iyo wax kala tarayn aan iska ilaalin ayaan isku tilmaamin waxaynaan ahayn. Khalid Bakeyle wararka fogaan aragga xorta Star TV Burco.